oo booskiiba cabirkiisa uu dhan yahay 40 lagu dhiftay 100 liiska kaalinta afraad waxa kaga jira madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud Calasow walaalkiis Cali Maxamuud Calasow waxaana la siiyay 10 boos oo dhulkaasi kamid ah halkii boosna sida kuugu muuqata halkan cabirkiisu waxa uu dhan yahay 40 lagu dhiftay 5 kaalinta shanaad ee mulkiilayaasha dhulkan hantiyay waxa iyana ku jirta marwadii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud marwa Sahra Umar Xasan oo hantiila ka ah 6 boos oo kamid ah dhulkaas cabirkooduna booskiiba uu dhan yahay 40 lagu dhiftay 5 waxa isna kamid ah dadka dhulkaasi hantiyay Cabdilaahi Goodax Barre oo la siiyay 2 boos oo midkiiba cabirkiisu dhan yahay 20 lagu dhiftay 30 waxa kaloo isna liiska kamid ah ganacsade lagu magacaabo Cabdirasaaq Ciise Abtidoon oo isna hantiyay 8 boos iyo nus sida idinka muuqata cabiradooduna ay kala duwan yihiin eegas wasiiru dawladda Cabdilaahi Maxamed Nuur haatan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna kamid ah dadka dhulkan hantiyay maadaama xildhibaan Cabdilaahi Maxamed Nuur isagu uu dhulal kale oo fara badan mulkiile ka yahay maanta waxa uu dhulkan ku leeyahay ama laga siiyay sida liiska kaaga muuqata 1 boos oo kaliya Xirsi Aadan Rooble Cabdiqaadir Cali Nuur ayaa iyaguna min 1 boos la mulkiisiyay Khaliif Axmed Erig isna 1 boos ayuu ku leeyahay halka Xuseen Cabdi Xalane Mahad Maxamed Salaad Yuusuf Geelle Ugaas iyo Maxamed Xasan Nuur iyaguna ay min 1 boos ku leeyihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud walaalkiis kale oo lagu magacaabo Xuseen Sheekh Maxamuud Calasow isna waxa la siiyay 1 boos sida halka kaaga muuqato waxa liiska kamida oorida iyo qaar kamida ehelada Jawaari waxa liiska ka muuqda wasiir Goodax Barre oo dhawaan iyo haatanba gudoomiye u ah kuwa loo igmaday soo celinta hantida ummade heer ilaaliyaha guud ee qaranka haata xilkaasi hay magacyada kale halkan idinka muuqda ayaa isugu jira xaasaska shakhsiyaad madaxahi qabaan oo ay ku qorteen boosaskooda iyo ganacsatooyina laga iibiyay sida aad ku arkaysid cabirka boosaska uu leeyahay Cali Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynihii hore walaalkii tanina waa mid kamida mulkiyadaha rasmiga ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud walaalkii Cali tan kale aad arkaysaa iyana waa mid kamida mulkiyadaha dadkii hore ee dhulkaasi laga kiciyay إن لبي تونكي سبحنا إيه صبح عيدما أضو فربضنا إيه نلقصو داشة ماشاسنا واحد دجنا ضدك أي يغني برمجيدة كمان كن قحوتي عشرة ودقي ودسين أي دجنا وحي هين ضدك وش العسن أو برمجيدة اللي يرادو أو أي تاين إيه قالوا جرجارو دين تبصل كنا أي ترى فقراء وحلا سيو إن أدون كانوا محي هيد برمجيدة وبحي وحي هيد ضد عن حبونين إلا واحد بقول لكن وحلولا دقمي si aan taariikhdu iloobin oo cadawtinimo aad u dhaxdheer oo islaamnimadu aanayba meel ka soo galin bay ahayd arrin muruga badan bay ahayd ciidamo fara badan oo ama Soomaali isugu daran bay ahaayeen waxay wateen hubka ay noocay wateen ma sheegi karo wallahi ani 77 miya loo socdaan bay siriyo macnaha ma xaaladda inta ula dagaalami doonaa dad birmageyda ama masaakiin ah arrin oo maxay ahayd ku haboormeen ahayn waxa dhacday in cagtana la mariyay maxay ahayd nus ka saacayntiina gaarin cagtana la mariyay in ciyaalkii la carnay in maxay ahayd la dhaawacmay waxa ugu daraa dadkii jiingada u dhisnaayeen lagu dumiyay oo musbaarada dhakada ka wada mudeen dadkii cooshada u dhisnaayeen ay inay dabba uu ka kaco ay ku sibteen adiga qof weel qaaday iyo qof kab qaaday ma jirin qof walba meesha ay ciirsan ka dhaay ciyaalkii ula carartay arrinkaas asaga markuu nagu dhacay hay'ada gargaar baa lagu noolaa macaawinaan meesha ku cuni jirnay hay'adihii deegooraan dib u helna amaan isu doonanaaba waxay noqotay mar alle aanay noqotay qof walba meesha ciirsan ka dhaay carartay waa la kala orday biyo ma jirin gaadiid ma jirin wax la qaataa ma jirin oo cooshadii cagaf baa martay maxay ahayd anagoo gacmo maran baan meeshii ka cararnay waxa dhacday dhulkii saas ahaa oo dadkii birmageyda ahay oo fuqarada ahay oo masaakiinta ahay laga jibiyay waxa dhacday maantay in ay u jeexan yihiin wasiiro iyo xildhibaano iyo madax iyo ganacsato war ilaahay baan idinku dhaariyay islaamku in fuqarada wax la siiyo oo laga gargaaro miyuu qabin war ma diintii baan ka noqonay waan islaam lahayn war dawladda miyaa wax loo sheegi karin oo maluuqada kale aan ku kala dhalanay oo la oran karin war dadkii nimeen dhulkay nagu jiideen
cagafayna mariyeen waana biraayeen taagay nagu jiideen wax aan la arag oo la maqal bay nagu sameeyeen dhaawacii baan la naalaa gidaarada la naalaa dhulkiina waxaa dhistay wasiiro xildhibaano gudoomiye baarlamaanka madaxweynaha ehelkiisii waxaan ku niri gabadha hadda meesha ee dekada loo bixiyay dekada qalalan gabadh dhisanaysaan u nimaalin waxaan ku niri walaal macaanto dhulkan hanti qarab baan kaga qaaday dad sabrolooga iyo dad OBC baan isugu jirnay balna fiiriyo dee sharciga noo fiiri waxay tiri anuu dikaraati madaxweynaha wataa haddii shalay uu iinsiiyey adeerkii cabdiqaasina maanta adeerkii xasan sheekh maxamuud baa isiiyey tiri waxaan ku niri waaya haddii saaka walaal waraaqa aadaysatana si natus baan ku niri waraaqihii markay natustoon aqrinay ayaan waxaan ku niri walaal haddii saas tahay ood adigu awooddaa maanta aad leedahay askarna intay nagu didhaa beerkana laga tumay talaal aan harsanayna xitaa cagaf bay amartay in lagu jaro qoraxdii oo aad u kululayd maars ahayd anagoo taagan baan ku niri walaal waxaan rabnaa inaad marka madaxweynaha noo geysto oo adigu awoodda addaadaada aan isaga soo cabano dee kitaab buu noo maro waxaan ka midnahay dadkiisii madaxweynaha noogee bal aan isaga soo cabaanay waxay ku tiri waxaa lama qoree haddaadan meesha ka tegin lugihiinu dhiig bay hoorinayaan wallaahi askar bay noo dalabtay gabar ilig xitaa basoolad looga jabiyaa ku jirtay aniga daqar baa i gaaray waana la dilay sida xaal u dhacay oo tan ah haddiiba la yidhaahdo xeerkii madaxweynuhu shacabkii deganaa dhulkaasi kaga kiciyey ma ahayn mid ammaanka madaarka loogu danaynayo bal sharciga dalku muxuu ka qabaa in dhul danguud ah madaxweynihii dalku xeer madaxweyne kaga raro dadkii rayidka ahaa ee deganaa ku celiyo danguud dabadeed isaga iyo qoyskiisii iyo saaxiibadiisii xukuumaddu ay qala qaybsadaan bar kalena ganacsato ka iibiya mar haddii dhul qof la siiyo waxaa cajiib ah in baahi kale ay timaado ee qof kale looga qaado